qoyska iyo reerka maxaa baabi'iyey isweydiino wazinadii umaankii galay oo ku farxay umar walba ku soo ceshanayay ayaa way ka daba timid hadda adigu ilowda ilaahay ma iloobin ilaahay ma iloobin nabigu waxa uu yidhi sallallahu alayhi wasallam إذا ظهرت المعاصي في أمتي معاصي مركي أمتي إذا أي كسر ظاهرته أي كسر صباحه صمقته إلهي سبحانه وتعالى وحكو عام يلا جبدو عذاب من عنده عذاب اكتسك هذا أي إلهي سبحانه وتعالى كسر مركي أي مصيبة سود جيسو ومركي أركتب فسادك أو صار ظاهرك xumaantii oo la muujisanayo dibadda la muujisanayo ogow markaasi ilaahay wuu cadhoon ilaahay hadduu cadhoodana oo cadhada ilaahay ay soo degto kana wanaagsan kana sheekha kana ma jirto gebi aakhira la kala soocaya asxaabtiba waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allahi ama fiihim yowmaidin unaasun saalixuun maalinka miyayna dad wanaagsan ayna ku dhex sugnayn maalinku ilaahay cadaabka ku soo dejinayo ay macaasida ayna iska qabanayn dad wanaagsan mayna ku dhex jirin nabigu waxa uu yidhi balaa haa way ku dhex jiraan dad wanaagsan markaas asxaabtii waxaana kayfa yusnac biulaa'ik kuwa maxaa la gaarsiin oo laga yeeli nabigu waxa uu yidhi yusiibahum ma asaaba annaas waxaa dadka ku dhacay ayaa iyakana ku dhici uma yasiruuna ilaa makfiratin min allahi waridwaan kadibna raali ahaanta ilaahay iyo jannadiis ayay geli doonaan ilmaha muxuu dembi u sameeyey odaygaas muxuu dembi sameeyey waa dembigii odaygaa waxaa loo qabtay inanka dembigii uu sameeyey ayaa loo qabanaya aakhiro waa laka bixi janno iyo wanaag iyo khayr buu ilmahaasi gaadhi laakiin adduunka musiibada iyo dembigaa soo degay ayaa lagu ciqaabaya ayuha alikhwa nabigeenu calayhi asalaatu wasalaam waxa uu noo sheegay waxa uu yidhi maa daharat alfaaxishatu fii qowm zinadu qoomku ma soo daahirto oo ma muujistaan xataa yuclinuu biha ma muujistaan zino qoom zinadii ayaa meela loo sameey fiideo lagu daawado hablihii iyo inamadii baa isla geli xumaantii baa la muujisan meela lagu daawado ayaa loo sameey dadkii zinadii bay daahirsanayaan buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam markay muujistaan wuxuu ilaahay ku sallidi cuduro aan jirayn lam takun fii aslaafihim dadkii ka horeeyey aan ku dhicin ummadiiga hore madiinaga horeeyey nebi nuux qoomkiisii iyo caad iyo tamuud iyo aydhis iyo siidaa iyo ma jirayeen ma jirin waa zinadii oo la daahirsaday iminka siidaa baa dhacay jabti baa dhacday hablihii baa la kufsaday meel walba xumaan iyo fasaad ogow weligaaba iswalwaal adigu weligaaba arlada isku qaadqaad ilaahay waa kuu kaadinayaa ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga waa intaasu ka soo ii soo noqda waa intaasu ka toobad keenaa laakiin markaad xumaanta aad ku sii socotid ilaahay wuu ku qaban hadduu ku qabtana ilaahay kuu naxariisani maayo qiso dhaba waan u taagnaa waan u joogi anigu dad badanna waxaa laga yaabaa meesha fadhiya inay garanayaan inan baa loo tegay ducaadda u tagtay waxay ku yidhaahdeen ilaahay ka cabso diintuu caayaa ilaahay buu caayaa salaadda ma tukado diintu waxa uu yidhaahdaa diintu xaq ma aha saasuu odhan jiray ducaad baa u tegay waxay yidhaahdeen war ilaahay ka cabso ilaahay u toobadkeen waxa uu yidhi meeshay fadhiyaan waxa uu yidhi dhegaysta waxaad ilaahay baad ugu cabsiinaysaan iyo cadaabkiisa miyaa ilaahayna waxaa ku sameeya haddii uu imaqlayo waka aan caaye waxa iga qaada buu yidhi wallaahi alcadiim waa xaqiiqa waan u jooga anigu waa la argagaxay waa laga baxay meesha musiiba soo socotaa la yidhi inaga saara bilima soo wareegin wuu iska qoslayey wuu iska ciyaarayey
baabuurkiisii buu ka hayst agsidaa buu galay meel kale rabbi kama dilin laftaa dhabarka uma la kala jebiyey insaankan waa daciif faryarada haddii la kala jebiyey maanta walaal insaanku waa cabaadi laftaa dhabarku ilaahay kala jebiyey qac waa la qaaday yurubtaa la geeyey waa la soo daweeyey laakiin baaradiisii طabcan dhinac baa baktiyey ma kici karayo waa la keenay waddankaa la keenay waxaa la keenay isaga oon qacmaha qaadi karayn lugahana aan qaadi karayn midna aan qaadi karayn farihiis ayaa la keenay waan u tagnay waan u naseexaynay waxaa laga yaabay inuu toobad keeno wuu hadlayaa laakiin ogow mar kaluu ilaahay caayi ilaahay baa iga sareeya qacmihiisaa iyo lugihiisaasiba way urayaan lama felisan karaysid matag waad matagi way urayaan dawooyin baa yurubta laga soo siiyey u mariyaa habeenkii markuu seexdo wax alla waxaa baraanbar iyo jiir iyo jinac iyo maxaanku wax alla waxa jaarka oo dhan meelahaas oo dhan baa ku soo urura xayawaan oo dhan markaasaa qacmihiisan iyo lugaha ma dareemaya isagu waa la cunaa subaxdii markuu toosan buu arkaya intan oo la cunay lugihiisii oo la cunay wuu dhawaaqayaa saasuu u fadhiyaa waa lafihii waxay soo saarayaan lafihii bay soo saarayaan subxaan allah sidaasuu u sugnaa wuu fadhiyaa bes waa la fadhiisiiyaa waa la qaadaa dhaqaaq kale male cuntada afkaa loogu ridaa biyaha waa la waraabiyaa saas u fadhiyaa labadii bari uu ku fadhiyey ilaahay wuxuu ka soo saaray laba saafuuro waaweyn dhulax ayaamidii waa laga soo saaray calooshaa loo fadhiisiiyey subaxdii walba dhakhtarkaa u yimaada waxbaa lagu dhaadhiciyaa waa laga soo sifeeyaa intaasay laa leegin daloolku waa weyni uma fadhiisan karayo caloosha u jeefaa qurmuunka ka baxaya xayawaanka jirkiisa ku soo ururaya silica uu ku nool yahay waan u tagnay isagoo sidaa ku sugan muxuu daawanayaa filmaan xun oo anshax xun buu daawanaya caloosha u jeefaa irooda wile iroo filimka ajab yacni waxa weeyaan waa xaaladtii ugu dambaysay ayay ku sugnaa silic cuntadii kuma dhaadhici karayso wuxuu sidaa uu ku sugnaadaba markii dambe hooyadii uu beryi jiray dadkii qaraabadiisa way ka tegeen gabadhi guriga uma shaqayso gabadhii guriga ka shaqaynaysa way ka tagtay waana tagayaabay tiri gurigoo dhan baa uraya hooyadii baa ku soo hadhay xataa walaalkii uu ka tegey xataa walaalkii uu ka tegey wuxuu beryi jiray qofka u yimaada walaal iga nax maxaan kuu qabtaa idaldal idil nafta iga qaat inaan dhinto ayaa ii dhaanta noloshana ku noolahay xaaladaasoo ku noola ayuha alikhwa sidii isaga oo ku nool buu dhintay maxaad u malayn ilaahay cadhadiisu way daranta waxaa dhacay waa qisa xaqiiqiya waxay ka dhacday sacuudiga ayay ka dhacday meesha faysaliya la yidhaahdo riyaad ku taala ayay ka dhacday qisadaasi waa haweeney meesha faysaliya la yidhaahdo waa riyaad waa meel aad u qurux badan qalab qaaliya lagu iibiyaa inamada iyo hablaha ayaa isla soo